بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد ومادة علومك iyo fasalka sideedaad iyo waxa inoo socday cutubkii sagaalaad cashirkiisii labaad ayaa inoo socday aalatul basiita gaar ahaan waxaynu maanta diiradda saaraynaa ama mijharka saaraynaa anwaac arrawaafi kaliya waxaan baraarujinayaa ardayo cashirkan dhamaadkiisa waxa ku jira masaa'il xisaab ah oo laga shaqeynayo ayaa ku jira fadlan waxaan codsanayaa markii xisaabta la soo gaaro in indhahaaga iyo dhagahaaga iyo aqligaaga saddexduba ay si fiican u shaqeeyaan waxaanu ka bilaabaynaa hore waxaan u soo qaadanay aalatul basiita inay lix yihiin ay ka mid tahay arraaficatu maanta waxaanu ka bilaabaynaa cashirkeena raafica ee sawirkeedu arki doono qaybaha ay ka kooban tahay waa maxay raafacadu waxa la yiri waxay ka kooban tahay kow nuqtatu al-irtikaaz oo Soomaali noqonaysa taako haddii ay nuqdo irtikaaskaasi ay jirin raaficadu wax qiimo ay yeelanayso ma jirto lambar labo mukawanaatu ar-raafica waxa kamid ah al-quwa oo karti ah ama juhdi labadaba waa la oran karaa lambar 3 al-muqawama horena waxaan kuugu soo sheegay in la oran karo thuqul in la oran karo xumuulo in la oran karo saddexdaasiba su'aashu waa iman kartaa marka muqawama kaliya ku dhigeen oo hadhow ta oran xumuulo waa maxay thuqulna waa maxay macnaheedu Soomaali noqonayo rar uu noqonayo sawirkaasi waxaynu tusayaa iyadoo isku dhan raafica ayaa la yiraahdaa iyadoo suurata raafica ayaa la yiraahdaa saddexda loo kala saarayna waa mukawanaatu ar-raafica ama loo yaqaano qaybaha kabaalka gacanta koowaad waxaynu tusaysaa halkaas waa muqawamo waa sheegii la rabay in la soo saaro weeyi nuqdadaasna waxaynu tusaysaa nuqdatu al-irtikaaz oo taakadii ah saddex ugu dambayso القوة أو بريها دلوق وديو وما هي مكونات الرافعة أما لو يرادو الشيء غيبها رافعة أجزاء هذا الشيء وحورنا يسا قوة هي مقاومة هي نقطة الارتكاز وحين كحيجا أمثلة على الروافع روافع ده كبالة قيب كبدا إنه نور المعلومات كنا إنه استعماله صور كومغدا هدان كبلابو دنكا بدح كبلابو وعوجدي ودبه وكاريونكي ومقسكي وبنسدي أما كلبد ولا بس تقانو إيو بهاشا قدام بيسا أو شرابك لغو فرو أنواع الروافع كبالة انت قيبود أيا لو كلا ساريا كلا ساريستاسنا محل لغو سليي صدح نوع أيا لو كلا قيبينيا صدح دا قيبودنا waxa lagu saleeyay quwa ama muxuha ama muqawama ama nuqdatu al-irtikaaz hadba mowqic ay dhacdo ayaa wuxuu sababaya raaficada noocay noqonayso ayuu sababaya روافع النوع كواد تقع نقطة ارتكازها بين القوة والمغناطيس تاكدي أي وحي أدحينيسا قوتي إيا مقاومتي لحظة وحا كجرا تاكا أيا كجرتا حاجة وحا كحيغا مقاومة حاجة وحا كحيغا قوة هدي النوع أركت تاكدي إني لحظة قشاي قوة إيا مقاومة لنعيادة آدين وحا أرانيسا kabaalkaasi waa nooca koowaad waxa sawirkaasi tusaale ayuu wuxuu yahay raaficada nooca koowaad gacantii ayaa horeysa si fiican u fiirso musallaskaasi casaanka ah wuxuu ku tusayaa nuqdatu al-irtikaaz irtikaaz haday dhexda gasho قوة iyo muqaawamo dhinacyada kala aadaan gacanta shaqeynaysa waxa ku tusaysaa quwadii midabka huruudana wuxuu ku tusayaa muqaawamadii nooca waxa oranaysa waa nooci koowaad waxa tusaale u ah maqaska ayaa tusaale u ah dhexda ayaa galay nuqdatul irtikaaz oo maqaska dhexdiisa meeday
badhanka cadaanka ah maqaska intiisoo dhan waa madow dhexda waxa ku jira badhan cadaana ayaa ku jira nuqdatul irtikaas ayuu u taagan yahay quwa wata taasuna waa muqaawama taasuna waxa weeye nuqdatu al-irtikaas rawaaficda nooca labaad yaa dhexda galaya mar walba saddexdii aynu soo sheegnay yaa ima quwa yaa ima muqaawama yaa ima nuqdatu irtikaas saddexda mid kamida ayaa hadba dhexda mid galaysa halka waxa lagu yiri muqaawamadu ayaa waxay u dhaxaysaa irtikaaska iyo quwa yaa dhexda galay muqaawamo ayaa dhexda gashay nooca waxa loo yaqaanaa nooca labaad ayaa loo yaqaanaa oka dhexdii waxa ku jirta muqaawamo gacantii oo quwa matalaysana koonahani aaday nuqdatu irtikaas oo mid musallaska casaankana dhinaca kale ayay aaday yaa tusaale yaa u ah kaaryoonka labada gacmood meesha laga qabanayo waa quwa dhexda waxa saaran waa muqaawamadii irtikaaskii meeyay taayirka boolka ayaro cad oo haya ayaa wuxuu noqonayaa nuqdatul irtikaas ayuu noqonayaa mid walbana gacanta ayaynu ku fiiqaynaa lambar 1 waxa lagu yiri waa quwa lambar 2na waxa weeye waa muqaawama lambar 3na waxa weeye nuqdatu al-irtikaas nooca saddexaad dhexda ayaa soo galay quwa ayaa dhexda soo gashay koonayaasha kala aaday nuqdatu al-irtikaas iyo muqaawama ayaa koonayaasha kala aaday dhexda waxa soo gashay quwa ayaa dhexda soo gashay sawirkiisina waka gacantii matalaysa quwa dhexda ayay ku jirtaa hareeraha waxa kala aaday muqaawama iyo muxuu ahaa nuqdatu irtikaas sawirkaasna wuxuu tusayaa oo hore aan u soo marnay sawirku soo dhow yahay waxa dhici karta guryaha in laga helo birqaadka dabka lagu qaado inuu la mid yahay aynu eegno quwa halkaas wuxuu noqonaysaa dhexdaas wuxuu noqonaysaa meeshii laga qaban lahaa oo quwada noqonaysaa halka gacanta hadda aan ku hayana waxay tahay muqaawamadii sheegi la soo qaadayay ayay noqonaysaa irtikaaskii meeyay waa ugu dambeeya halka waxaan kaga faa'iideysanaynaa bahasha oo qof walba uu yaqaano waa qardhab xafiisyada ayaa laga isticmaalaa dhaxda aan hayo halka dhaxa aan hayo waa meeshii aan awooda galin lahaa halkaasna warqadii aan qardhabeyn lahaa weeye halka dambana waxa weeye muqaawamadii halka dhaxda ku hayo waa quwa afka hore aan warqada gelinayo aan hadda farta ku hayo waxa weeye waa muqaawama halka u dambeysana waxa weeye nuqdatu al-irtikaas waxa kale oo kamid ah noocyada rawaaficda qardhabta aan gacanta hadda ku hayo waxay matalaysaa muqaawama gacanta inta dhaxana waxay matalaysaa quwa suxulkaasina wuxuu matalayaa nuqdatu al-irtikaas ayuu matalayaa inta waxayna ku xigaa qaybtii waxayna soo gaarnay xisaabta oo loo baahan yahay si fiican in looga faa'iideysto waa meesha ay xisaabta culuumka ka soo gasho marka la xisaabinayo kabaalka tayadiisa qaanuunka halka kuugu qoran ayaa isticmaalaysa quwa lagu dhuftay طول ذراعها طول ذراعها ومحي ومسافة ذراع أود ووتو أيا وحلم تهاي مقاومة إسنا وحلا قدو فنا يا أوتها طول ذراعها إسنا جعن فوقان أيوتها قانون كاسي معادلهان أيو دقيا هاي ودين عمدك وحيالا قوة لقول فتاي ذراعها دين عبدحنا وحيالا مقاومة لقول فتاي ذراع عيد لقول فتاي أيا يالا ذراعه محاتهاي ذراعه محاتهاي وحكينا وحنا هاي مسافة ودحيسا قوة إلى ارتكاز أما مقاومة إلى ارتكاز هدي لك لقاضنا قوة ذراع قارة يلانيسا مقاومة الذراع قارة أي يلانيسا ذراع قوة ليه هاي أما فوقانت قعنك إن أود وحوي مسافة ودحيسا ارتكاز كدحدا كجيرا إلى قوة مسافة أيا ودحيسا مسافة أيا وحلو يغانا طول الذراع القوة
muqaawamana diraaceedu waxa weeye irtikaaskii dhinaca kale markay muqaawamo taalo masaafada u dhaxaysa ayaa waxay noqonaysaa طول ذراع المقاومة صور كاسي وحين تصيا لبضع لين أو عسانك أو أن مد هذا قعنت كوهايو ومسافة ودحيس قوة إيوه ارتكاز تاسو نقوليسا طول ذراع القوة تنكله أو عسانك ليدك عسانك ومسافة ودحيس ارتكازك إيو مقاومة مسافة مقعد وحين نقوليا طول ذراع المقاومة أيو نقونيا تصالح يا لسي وحالي كبال لو استعمالي أود لحدا نيوتن هل كايلو سعو مر هدي قوة هاي هل بيقود وين مركب مسكح صد عدا قوة هل بيقود وحوها نيوتن قواداسي طول الذراع ayaa leedahay hore u soo sawarnay 30 سنتيمتر maxaan u iri سنتيمتر waa masaafo hadii masaafo timaaday halbeega imanaya waa سنتيمتر awooda 60 ah ayaa waxay saameynaysaa muqaawamo 120 newton ah ayay saameynaysaa muqaawamadaasi ina waxay wadataa diraac ayay wadataa masaafadiisu tahay 15 waxa lagu yiri xisaabi kabaalkaasi tayada uu leeyahay qaanuunka ayaynu qoranaynaa quwa lagu dhuftay طول ذراعها waxay la mid tahay muqaawamo lagu dhuftay طول ذراعها quwa maxaan haystaa 60 newton waxaan ku dhufanayaa fogaanta gacantiisu waa intee waa 30 dhinaca kale waxa yaala 120 oo muqaawamo ah ayaan waxaan ku dhufanayaa 15 سنتيمتر oo طول ذراعها dhinac walba waxa ii soo baxaya halka kala soco qaaf waxaan soo gaabinayaa quwa daalna waxaan soo gaabinayaa diraac ayaa waxay la mid noqonaysaa miim waxaan soo gaabiyay muqaawama lagu dhuftay diraac halka si diyaarso isku dhufasho halka si diyaarso oo quwa su'aasha inta lagu siiyay 60 ayaa lagu siiyay diraacuna waa intee waa 30 inta markii la isku dhufto waa in la ekaataa muqaawamay maxaa ahayd 120 dhinaca kalena waxa weeye 15 labada markaan isku dhufto 180 waxay la mid tahay dhinacana markaan isku dhufto 180 dhinaca midig wuxuu la ekaaday dhinaca bidix ayuu la ekaaday kaas waa tusaalihii koowaad weeye tusaalaha labaad eenu eegno raafico quwadeedu ay tahay 300 newton diraaceeduna yahay 15 ayaa waxay saameyn ku sameysay muqaawamo 90 newton ah hadaa tusaalaha u fiirsatid leema siinin muqaawamo diraaceeda leema siinin saddex shay ayaa la siiyay su'aashii ka horeysay hadaan eegno afar shay ayaa la siiyay muqaawamo iyo diraaceedi waa labo muqaawama iyo diraaceedi ina waa labo afar baa la siiyay laakiin tusaalahan waxa la siiyay saddex kali ayaa la siiyay waa quwa iyo diraaceedi muqaawama diraaceedi lama hayo su'aash adaa lagu weydiiyay soo saar طول ذراع المقاومة soo saar qaanuunkii ayaan qoranayaa shaqada waxaan kala saarayaa laba qaab ayaan uga shaqeynayaa arday walba qaabkii ku fudaada kaga shaqeey qaanuunkii wala isla wadaaga quwa lagu dhuftay diraaceedi ayaa waxay la mid tahay muqaawamo lagu dhuftay diraaceedi quwa waxa la siiyay 300 ayaa la siiyay waxaan ku dhuftay 15 ayaan ku dhuftay waxay la mid tahay 9 lagu dhuftay siin maxaa siin u iri waxa iga maqan diraaci ayaa iga maqan dhinaca markaan isku dhuftay waxa ka soo baxay 4500 dhinacana markaan isku soo dhuftay waxa soo baxay 9 siin ah halka markay marayso waxaynu dib u xasuusanaynaa mucaadalooyinkii siin waa mutaqayyir ama waa doorsoome 9na waa mucaamil oo waa horgale siin kaliya ayaan rabaa inuu ii soo haro 9na inay meesha ka baxdo maxaan sameeynaya dhinac walba waxaan u qaybinayaa 9 ayaan u qaybinayaa siin kaliya ayaan rabaa 9ka dhinac yaala ayaan u qaybinayaa
4,000 iyo 500 ayaa waxaan u qaybshay 9 labada eber ayaan isu jarayaa dhinaca kalena 9 ayaa 9 u qaybshay labadii 9aad ayaa israacay halka hadaan ku cesho 4,000 iyo 500 loo qaybshay 9 labadii eber ayaa baxay waxa eber sare iyo eber hoose ayaa baxay waxa soo haray 400 iyo 50 hoosana waxa yaala 9 dhinacan kale markaan 9 u saaray siin kaliya ii haray 400 iyo 50 loo qaybshay siin waxa soo baxay 50 ayaa soo baxay iyada oo sabuurada ku qorana qaaf lagu dhuftay diraac waxay la mid tahay miim lagu dhuftay diraac qaaf waxa la siiyay 300 ayaa la siiyay lagu dhuftay 15 waxay la mid tahay miim 9 ayaa la siiyay daal ma aan haysto mar hadaan haysan waxaan u qaadanayaa xaraf ayaan u qaadanayaa labada markaan isku dhufto waxa ka soo baxaya 4,000 iyo 500 labada hadaan isku dhuftana waxa ka soo baxaya 9 oo siin ah siin kaliya ayaan rabaa 9 inuu meesha ka baxaa 9 suu meesha uga baxo waa inaan xaggana 9 u qaybshaa xaggana 9 u qaybshaa eberka ayaa israacaya 400 iyo 50 loo qaybshay 9 ayaa soo haraya 9 ka markay israacaan siin kaliya ayaa soo haraya labada oo la isu qaybshay 400 iyo 50 loo qaybshay 9 5 u saar 40 iyo 5 eberka markuu soo dago dusha ayaan saaraya waxa ii soo haray siin wuxuu la mid yahay 50 ayuu la mid yahay halbeegan ku darayo waa maxay haddii xasuusatid waxa la diray diraac ayaa la diray diraacna waa masaafo mar haddii masaafo tahay waa inay raada centimeter waa inay raada waxaan eegaynaa tusaalaha qaabka labaad oo looga shaqeyn karo qaabkii labaad oo looga shaqeyn lahaa haddii qaabkii hore kugu adkaaday qaabka labaad ayaynu eegaynaa qaanuunka waa deysanaynaa qaanuunka sidiisaan u deynaynaa sidiisa ayaynu qaanuunka u deynaynaa waxaan oranaynaa diraacana iga maqan diraac wuxuu la mid yahay labada waan haystaa waxaan oranayaa quwa lagu dhuftay diraaceedi loo qaybshay muqaawama diraacow waxa la mid tahay la soco diraaca waxa iska leh muqaawamadan ayaa iska leh diraaceedi ayaa maqan quwa waxa la siiyay 300 ayaa la siiyay diraaceedina waxa la siiyay 5 iyo 10 muqaawama waxa weeye 9 daal wuxuu la mid yahay labadaas aan isku dhufanaya labada ayaan isku dhufanaya quwa iyo diraaceedi ayaan isku dhufanaya waxa ii soo baxaya 4,000 iyo 500 loo qaybshay muqaawamadii wali waxaan raadinayaa diraaci muqaawamada ayaan wali raadinayaa diraacul muqaawamati wuxuu la mid yahay eberka isku jar waxa ii soo haray 400 iyo 50 loo qaybshay 9 5 u saar 5 iyo 40 eberkaas haduu soo dago oo waayo wuxuu la qaybsamo dusha ayuu fuulayaa kadib diraaci wuxuu noqonayaa 50 centimeter ayuu noqonayaa labada qaab ku celceli arday walba kii ku fudaada raac iyada oo ku qoran casharahaan qoran diraac al-muqaawama waxa ay la mid tahay quwa lagu dhuftay diraac al-quwati oo loo qaybshay muqaawama diraac al-muqaawama waxa la mid tahay quwa 300 baan u qaadanayaa diraacana waxaan u qaadanayaa 15 muqaawamana waxaan u qaadanayaa 9 diraac al-muqaawama wuxuu la mid yahay markaan 315 ku dhufto 4,000 iyo 500 oo loo qaybshay 9 diraac al-muqaawama markaan labadaas u qaybsho waxa ka soo baxaya 50 centimeter ayaa ka soo baxaya su'aalihii ayaynu soo gaarnay su'aasha koowaad waxa lagu yiri raafica ama kabaalka mukawanaadkiisa sheeg labo uskur anwaaca rawaafic noocyada loo kala saaray rawaaficda qor magacyadooda saddex oo ugu dambaysa waa su'aal kuwan ayay la walaal tahay oo la bahtahay
raafica nooca saddexaad ah ayaa tuulu diraac alquwa quwa diraaceeda ayaa la siiyey quwa maaha in quwa ahayn ma ku cadeynaya centimeter baa la socda hadii quwa ahaan lahayd maxaa la socon lahaa newton ayaa la socon lahaa mar haday centimeter tahay waa quwa diraaceedu weeye طول الذراع المقاومتنا waxa la siiyay 15 سنتيمتر ayaa la siiyay muqaawamadii waxa la siiyay 300 ayaa la siiyay maxaa iga maqan awoodi quwa ayaa iga maqan saddexda su'aalo ayaynu ku soo gabagabeynaa cashirka waxa idin leeyahay ardayay ka qayb muxuu ahaa mushtarakiin noqda kunu mushtarakiin fi القناة بضغط زر الاشتراك حتى يصلك ما هو الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته